إلهي بعث ماتية وامده كله وحي اسكو دايا جانس كانوا نسنا كفايديست hantidaada hayse buu leeyahay yani qofka ahlu dacwaa dadka jeebkooda waxa ku jira uma muuqday dadka qulubtooda u muuqata haddaad u fakarto in dadkan jeebkooda sidaad u baaran lahayd faanta taajir yani farsamadaas waad ku fiicantay ila taajirku wuxuu buu fakaray in dadka xoolaas uga urursan lahaa xaqiisa ay u qaban lahaayeen laakiin qofka ahlu dacwaa wuxuu u fakaraa dadkan qulubtooda soo ururin lahaa dadkan qalbigooda u heli kari lahayd marka wuxuu yidhi hantidaadan oo dhan iska hayso adigaa ku ag taalla ee hal mid ayeen ilaahay rumee anna ilaahay baan kuu bariyaa indhaa kuu bixinaye tawxiidka wuu u saxayaa in ilaahay wax bixiyo wuu u sheegay wuxuu kaloo u sheegayaa maxay inuu ilaahay rumeeyo wuxuu kaloo u sheegayaa isna inuu ilaahay baryi doono subxaana wa tacaala tamar kale uu leeyahy inaanay jirin ee waxa uu haystaa inay tahay un baryo qura mujarad anna ilaahay baan baryayaa buu leeyahy subxaana wa tacala isagaa indhaa kuu bixin ninkii ilaahay buu rumeeyey wiilkii yaraana alla uu bariyey indhihii baa ilaahay u bixiyey dabeetana waa kii boqorka ku noqday boqorkii baa yidhi yaa indhaa kuu bixiyey rabbigay buu yidhi awalaka rabbun hayri buu yidhi oo ma mid aan aniga ahaynoo kuu rabbiyaa jira dunida dee mar kasta rag baa rabbiya ka sheegta caalamku intii la soo joogay mar kasta qolunba ku qooqanay dabeetana wuxuu yidhi ma mid aan aniga ahaynoo rabbiya baa jira adiga iyo anigaba rabbaynu wada leenahay buu ku yidhi waa kii ninkii la garaacay wuxuu sheegay wiilkii yaraa wiilkii baa la soo qabto waa la garaacay wuxuu sheegay maxay wadaadkii saddexdiiba waa la keenay wadaadka buu yidhi isaga god u qoda oo madaxa miishaar ka mariya wadaadkii god inta loo qodaa madaxa miishaar laga qoray diinta ma ka noqonaysaa may labaa loo kala riday qof bini aadam inta halka laga miishaareeyey laba dhinac laga dhigay waa ka baxday wadaadkii ninkii boqorka ag joogay baa la yidhi aadna ma ka noqonaysaa may buu yidhi isna labaa loo kala riday wiilka yar weli laxajaclu ka qabaa waayo dee cilmigiisi wax kale isagunba haya kan diintana isagaa haya kii sixir rooluhu dee uu ka tegayna isagunbaa haya markaa ma jecla inuu markiiba dilo ee wuxuu rabaa bal sidii kale wax loo farsamayn karo ciidan buu ku daray wuxuu yidhi kaxeeya buurta dulgeeya waxaad tidhaahdaan waa masaafada da intaad ku jirto waa wakti lagu siiyey inaad sii fikirto bal inna inaad waxan ka noqon kartid buurta intaad dulgeysaan ma ka noqonaysaa dhe mise waa kaa tuuraa buurtii baa la geeyey waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa waxaanaad haysato mise waa kaa tuuraa waa kii ilaahay baryey yidhi allahuma kfaniihim ilaahu igaga filow sharkooda ilaahay baa kaga filaado buurtii intay gelgelankumaa intay askar tahay daadato wiilkii yaraa hadda jaanis buu haystaa sow maaha jaanis baxsasho miyaanu haysanin oo haystaa muxuu baxsan waaye yani waxay ahayd haddii uu hamigu sidaa naftiisa hadday tay jaaniskii wuu hayaa intii la socotay ilaahay waa halaaga xaggan uu ku socdana boqorkii baa weli jira iyo qoomkiisii uu dee dubur buu hawd ka xuli kari lahaa uu iska tegi kari lahaa laakiin muu tegina uu soo noqday boqorkii buu haddana u yimi wuxuu yidhi ciidankii aan kugu dareemeeyo ilaahay baa igaga filaaday buu yidhi doonuu rara buu yidhi oo ninkan badda ha la geeyey badda ha lagu tuuro doontii baa la raray baddaa la geeyey waar ma iska daynaysaa mise waa kaa tuuraa baa la yidhi ilaahay oo igaga filow buu yidhi doontii waa gelgelantoo intii kala qubatay isagaa alla ku soo reebay waa soo noqdoo meeshii buu yimi markuu meeshii yimi muu baxsanin haddana isma odhan doon dhan baad haysataa ee keligaa iska tage boqorkii buu dib ugu tegey wiilkani hami ka weyn buu sidaa nafta wuxuu rabaa naftatan inuu ilaahay dartii u dhiibo iyadoo rakhiisaa inay iska dhimato laakiin tolkii inuu badbaadiyaa buu rabaa mujtamaciisa inuu badbaadiyo ayuu doonayay walidaalika buu boqorkii ku soo noqday boqorkii waa kii u tilmaamay yidhi wari dili kari maysidee ma kuu sheegaa si aad ii dili karto isagii baa sheegaya sida loo dilayo sharax buu yidhi qaansadayda intaad la soo kacdo oo halkan leeb kala soo baxdo buu yidhi kanaanadayda gammuunka iyo qaansada intaad isku xidho bismi illaahi dheh ama bismika allaahuma ilaahay magaciisa u qabo dabeetana halkaa igaga tooga buu yidhi markaa umaad ii dili kartaa boqorkii sidii buu yaa ilaahay bisinkiisu u qabtay meeshii baa lagu xidhay waa ku dhacday wiilkii yaraa siibuu ku shahiidoobay waxaa ka dhacday markaa saa xadiidkaa ku wada barateen dadkii oo dhan baa islaamay boqorku muxuu ka cararayay
wiilkan iyo wadaadkii hore iyo ninkiiba maxaa loo dilay inaanay rumaynin rabbi isaga qayrkiiya laakiin hadda farsamadii wiilku maxay keentay mujtamac dhami inay rumeeyaan ma odhan karnaa wiil baa hamigu xambaaray ummad badbaadiyey marka wiil baa hamigu xambaaray muu ahayn inuu nafta la baxsado ama inuu meel kala geeyo hamigu siday waxay ahayd bulshada tan siday u islaami lahayd walow isaguna ha dhintee hamigaasa buu xambaarsanaa inuu iimaankan iyo dacwaddan isku dayo inuu dad gaadhsiiyo wuu gaadhsiiyey iyadoo weliba dadkiina aanay wax badan ka dambaynin xadiidku soomuu sheegaynin ninkii intuu godad u qoday inuu yidhi dab ku shida oo ku gura wixii diida oo qur-aanbadee kuma soo degin ka warramaya wasamaa'i daati alburuuj walyawmi almawcuud washaahidin wamashhuud qutila asxaabu اlukhduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu biاllahi alcaziizi alxamiid waxaan leenahay wiilkani wuxuu xambaarsanaa hami ah inuu ummad xoreeyo idan waxaan leenahay mujtamaca waxaa yaraaday hamigay xambaarsanaayeen mujtamacaadkeenna waxaa sagiiray abnaa'i saxwa waxaa yaraaday hamigay xambaarsanaayeen walow hamiga diinta tan mujtamacu uu xambaari lahaa waxaan u malaynaya malaa'intaba laislaamlama gaadheen haddii dadkani hami weyn uu xambaarsanaan lahaa inuu ku wada xaqiiqoobaa qasab maaha yani humuumtaasi daa dhammaanteed inaad wada gaadhaa qasab maaha waayo qur'aan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu inoo sheegaya aakhiro ambiyo timi iyagoo aan waxba wadan ama midh wata ama laba wata ama saddex wata hamiganna xambaarsanaa laakiin ambiyadii ka dambaysaa ku guulaysatay noloshu waa taxane taariikhdu waa isdaba taalla waxay leenahay qofka mu'minka hadduu hami weyn xambaarsan yahay hami ummadeed maanta haddaad xambaarsantahay waad muqdisho si aad u badbaadisaa soomaali si aad u badbaadisaa muslimka caalamka ku nool si aad u badbaadisaa waad badbaadin karaysa ilaahay baana ugu talagalay inuu bashar wax badbaadiyo ilaahay baa ugu talagalay basharka mu'minka ahi ilaahay ariiqiisa hadduu qaatay inuu bini aadamku ku badbaado inuu hiilkiisu isaguna yimaado laakiin dadka marka hamigoodu soo wada yaraaday ee wadaad iyo caalim iyo mid wax garanayaba afar carruur iyo islaan meel la dhigaba la waayey ee dadkoo dhammi luqmatulcaysh ka warwaray mujtamacoo dhammi luqmatulcaysh waagu markuu beriyo waxaa laga yaabaa nin kastoo inaga mida inta shire uu galo ee uu beriis u galaa iyo intuu ilaahay dartii u galaa inay badantahy mar kastaba intuu beriiska u galo kaanamaa wakhtiyadan dambe abaad sodhanayso haddaad aragto 5 nin oo abnaay saxwo oo meel ku wada hadlaya kollay shirkad bay samaynayaan baad sodhanaysa yacni humuumtii kalaa yaraatay waayo humuumu tijaara baa imka badan walidaalika haddaad aragto dhowr wadaadoo meel afka isku haya waxaad tilaahday malaa uun masale tijaariyaa jirta ikhwatii fi lcaqiida dadku markuu intan ka yaraa abnaa'i saxwa ay se ka hamiga weynaayeen waxbay xaqiijin jireen waxaan xasuustaa fi sabciinaat waa joogaan raggii dacwada wadi jirayna iyadoo dhallinyaradu marka isu timaado lagu xisaabtamo toddobaadkan iyadoo la isweydiiyo sharka yaroo usbuuca la isugu yimaado waar toddobaadkan hebelow imse nin baad masaajidka keentaa la isweydiin jira imsaad salaad ku soo xidha iminkana waxa laga yaabaa noloshaadaba inaad qof suuqa intaad ka keentay keenin mid masaajidka sii joogo inaad wuxu kordhisay mooyaane mid masaajidka sii joogayoo dee walba inuun xaqa ka haystay inaad waxu sii kordhisay mooyaane inaad weli intaad qof suuqa ka soo qabatayba dee ilaahay khayr ka siiya nimankaa tabliiqa un baaba nimanka arkaa waxa qof intay suuqa ka soo qabtaan le warkaalay tuko oo halkan baa khayr lagu hayaa ee ka dhegayso yani hamigii dadkaa yaraaday haddaa 1,000 qof baa laga yaabaa inaa meelahan iminka inta fadhfadhiday inta dhegaysanaysaatay 1,000 qof hadday caawa ku dhaqaaqdo xamar waynu ku xisaabtanno hal sano imsaa masaajid keeni kartaa shaqo kale aydan qaban hal sano imise qof baa salaad u hagaajin kartaan iyo caqiidadiisa inay tawxiidkana u socdo ilaahayna uu ku xidhmo un imise qof baad u samayn kartaa waxay noqon lahayd dee usbuucii markaad nin raga ahayn midhunkeen waa 52 wiig sanadka waa 52 usbuuc sanad kasta 52 baad keenaysaa kaad keentayna dee ilna wiig buu kaa dambeeyaa isna 51 buu keenayaa kii ka dambeeyana ilaa wiigunbuu ka dambeeya 50 buu keenaya bal tiradaa isku dhufo waa imisa xamar inta joogta intiinaa ku filan hal sano in salaad lagu wada baro hal sano inay masaajid wada galaan laakiin waa goorma waa goorteed hamiga sido
وقرت يجوبيسو إن أنا أركو قف مسلم وصلاة الله وقرت يكجوبيسو إن أنا أركو قف مسلم ومعصية كجرة وقرت يكجوبيسو إن أنا أركو قف مسلم ودين لآن ودمانية وقرت يكجوبيسو إن أنا أركو أديو إلهي كتاب كيس دمانتي قيبسا يمنا فاتحة الليلة وصلاة أنا كأصحيني هذا ركتو يسوي سلبة تكو صلاة دينا كأسيح ويلي أدنى صدم بعض حنبارتن تحت دين تنا مسؤولية بكاسارا هي هموم باينك سارا وحين لا نحي هذه أي نقطة قالنا إنه دنيا مواجهنا وواجه كرينا هذا نقطة قالنا هم مجد دين تنا إنه حنبارنا وحنباركنا هذا نقطة قالنا إنه نقال السماين والسماين كرينا هذا نقطة قالنا إنه الدولة بسنا ودي سكرنا لكن حويان هم مجد إنه سيدنا يتويه هم مجد هدات سيدواد ودي كرتا وانا السماين كرتا بشر باطي إنسان إلهي أبورتي حقنا يقتل مامي عقلنا له